Muqdisho waxaa ka socda shirka tiknoolajiyadda oo lagu soo bandhigayay barnaamijyo kala duwan oo la xiriira dhinaca tiknoolajiyadda. Barnaamijyada la soo bandhigay ayaa waxaa ka mid ah barnaamijka Arday-kaal oo ah app ku shaqeeya internetka kaas oo ardayda ay ka heli karaan casharro iyo sidoo kale imtixaanno tijaabooyin ah oo loogu talagalay in ardayda dhigata dugsiyada sare lagu tijaabiyo. App-kan oo muddo sanadaha shaqeynayay ayaa ardayda dhigata dugsiyada sare waxa ay ka helayaan casharro isugu jira maqal iyo muuqaal. Cabdiwahaab Mahdi oo ah howlwadeen ka tirsan shirkadda Arday-kaal ayaa sheegaya sida ardaydu ay ugu xiran yihiin app-kan. application-kan waxyaabaha ka saacidaya ardayda Soomaaliyeed waxaa ka mid ah hadda waxaan diyaarinay barnaamijka waxaan u diyaarinay ardayda dugsiyada sare qaasatan ardayda shahaadiga oo imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada fariisanayo waxaan u diyaarinay in ay ka 10 maado ay ku qaadanayaan waxaan ugu diyaarinay su'aalo iyo jawaab aan ugu diyaarinay sidoo kale waxyaabaha application-ka ugu diyaarin waxaa ka mid ah 4 maado scientific waxaan ugu diyaarinay casharro 4 maado scientific muuqaal aan ugu diyaarinay sidoo kale waxaa ku diyaarsan app-kan imtixaanaad tijaabo oo ardayga مثلا tusaale ahaan oo kale wuxuu soo akhrisanaa su'aalo iyo jawaabiyo markuu soo akhristo kadib wuxuu u diyaar garoobaa imtixaanaadkaas tijaabada oo maamulka Arday-kaal uu soo diyaariyay inuu meeshiis ka dhex galo imtixaankaas tijaabada oo ardayga markuu wuxuu ka saacidi doonaa inta su'aal oo qalday application-ka uu sheegayo inta su'aal oo sax application-ka uu sheegayo imtixaanaadka inta dhibcood oo keenana application-ka uu sheegayo. Qofka u baahan app-ka Arday-kaal waxa uu si fudud kala degayaa Google Play Store isagoo ka helaya casharro isugu jira maqal iyo muuqaal. Cabdiwahaab Mahdi ayaa sheegay sanadaha soo socda inay rajeynayaan diyaarinta dugsiga hoose iyo kan dhexe. App-kan wuxuu ku saleysan yahay ardayga xanaanada soo bilow ilaa heer jaamacadeed ku saleysan yahay diyaarinteedana waa ku howlanahay waxaan ka soo bilownay wax loo yaqaan qaybta dugsiyada sare hadda aan ka soo bilownay ilaa hoos aan u daadegayna insha Allah hadduu Ilaahay na gaarsiiyo sidoo kale waxaan rabnaa inaan gaarsiino ilaa heer jaamacadeed مثلا tusaale ahaan oo kale haddii aan dhano ilaa jaamacada waa gaarsiinayna jaamacad waliba waxay leedahay policy gooni ay leedahay jaamacadaha hadda marka waxaan ku wadnay maamulkayna in maxallaha waxyaabaha ay ka sameeyeen مثلا tusaale ahaan oo kale maadooyinka social science oo kale waxyaabaha ay ka sameeyeen jirto marka maalmaha waxaan sameynaynaa xog ururin ku aadan jaamacadaha waxyaabaha ay ka sameeyeen sida research methodology oo kale jaamacadaha dhammaan way ka wada sameeyeen app-ka inaan ku soo diyaarino. Cabdiwahaab Mahdi ayaa sidoo kale sheegay ardayda app-kan isticmaasha inay ku sameeyaan dabagal isla markaana ay ogaadaan dhibcaha ay ka keeneen imtixaanaadka ay galayaan xilliga shahaadiga ah. waxaan uga cad wax loo yaqaan 17 18 imtixaanaadku la galay ardayda noo baastay waxay gaarayaan wax loo yaqaan app-ka soo dalbatay waxay gaarayaan 2500 oo arday ay gaarayaan. waxa kale sidoo kale app-kan 2018 17 marka waxyaabaha ku cad waxa kamid ah ardayda marka application-kan isticmaalaysay waxa lagu maaday imtixaanaadka wasaaradda ay qaadaysay in application-kan ay ku najaxeen ay ku guuleysteen sidoo kale waxyaabaha anaga ka fiirinayna waxa kamid ah application-kan ardayda anaga isticmaalaysay top 10 ma soo galeen marka sanadka 17 18 wax top 10 la ardayda ma soo galeen laakiin rate-kaas meesha ku cad waxa waaye 10% markii top 10 ka markii la hayo afar qofood ka soo gashay sanadka hadda ugu dambeeyay oo application-ka isticmaalaysay ilaa 11,856 qofood application-ka sanadka soo dalbatay.